Afyanu hadlay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Qaasim Axmed Rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku guuleysteen sidii ay u soo qaban lahaayeen ruux ay sheegeen inuu dilay agaasimihii maxkamadda sare ee dalka 9kii bishan. Afyaan Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in shakhsigaasi uu qirtay isaguba dilka uu u geystay marxuumka sidoo ugu dhaqsiyaha badanna waxa uu sheegay in cadaaladda la horgeynayo. ugu horeyntii waxaan rabaa inaan halkan ku soo bandhigo gacan ku dhiigle Faarax Cali Nuur Hayle oo dilay agaasimihii maxkamadda sare ee qaranka. ninkaas waa gacan ku dhiigle isaga ay dhinac fadhiya waa kan oo dhinacaygu fadhiya asaga xaqiijinaya asaga qiranaya asaga ogol ciidanka amnigu waxay ku guuleysteen in ay soo qabtaan markii uu dilay ka bacdi goobtiina uu ka baxsaday. ciidanka iskaashi ay sameeyeen ciidanka amniga ayaa lagu soo qabtay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana maxkamadda loo horgeynaya haddii ilaahay idmo. haddana gacanta waxaa ku haya ciidanka booliiska waad u jeedaan halkan dhinacaygahu fadhiya waa ninkan weeye. allah u naxariisto walaalkeen agaasimihii maamulka maxkamadda sare ee dalka marxuum Mursal Cumar Cismaan ayuu dilay taariikhdu markii ay ahayd 9kii bisha shanaad ayuu dilay. waa sida ugu haboonaana loo geenayaa ugu dhaqsiyaha badan baa maxkamadda loo geenayaa. ciidanka amnigu iskaashi fara badan oo wanaagsan oo taliyaha ciidanka booliisku uu hormuud ka yahay ayuu ayaantan magaalada Xamar ka waday. iskaashigaas si fiican buu u dhacay howlgallo fara badan baa la fuliyay dad fara badan baa lagu qabtay oo maxkamadda la horgeeyay oo askar iyo shacab isugu jira. waxa arintaas hormuud ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Faarax Cali Nuur Hayle oo ku eedeysan falka dilkaas ayaa isna sheegay inuu geystay dilka ehelada marxuumka ayuu ka dalbaday inay cafiyaan. dilkaas aniga geystay ninkan horta nin iga dheer ma ahayn nin walaalkii aniga guri isla degannahay oo ceesh wadaagna oo ahay ma fahant wixii qadarta hadii dhici rabtana qofka celi karta mar sheedaanana arrinkaas ka taliyay. waxaan haddana ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed iyo inta asaga la dhalatay eheladiisa iyo macal ummadda Soomaaliyeed asaga taqaynay inay cafiyaan asagana naxariista jana Ilaahay geeyo. macna nin kale ana wada muranay marka ninkii kale inta u socday asaga soo soo marxabadii markaas ugu dhaceen. waxa daawo anaga naga dhaxaysa ama godob asi igala dhaxaysan ma aanay jirin. waxaan ka codsanayaa inta la dhalatay biisa ahaada oo uu sareeyo ilaa wixii la dhashto dhan inay cafiyaan maadaama ninkaas walaalkii aniga gacanteeda oo samsaday. Maxamed Cabdinaasir ayaan la Universal TV Muqdisho.